بسم الله الرحمن الرحيم dawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee wadani TV la xiriiro waxaan rabaa maanta inaan idin sheego waxay tahay saxaafadda ay Soomaalida si xun u fahamtay saxaafaddu waxay leedahay shuruuc iyo qaynuun lagu barto jaamacadaha caalamka haddaba waxa muuqda qof walba oo Soomaali ah inuu iska furtay radio iyo website sida awgeed waxay u keentay khatar maalin walba in la dilo waxay leedahay qaynuuno aan hadii aan Soomaaliya hal xaba idinku sheego la yiraahdo xeerka lamagalayga wariye gali kara bijran dalalkan hore u maray sida Mareykanka Ingiriisiga oo amaba Yurub TV-yadan CNN-ta BBC-da Al Jazeera maalin waxa sanadiiba laga eriyaa wariyaal aad u fara badan kuwa qaarkood oo iyaga xataa shaqada laga fariisiyo maadaama ay dhax taraaraxan ama ay galeen xeerka lamagalayga taasi waxay ku tusaysaa dalalka amniga xataa haysto in uusan ogolaaninin in wariyaha uu xeerkaasi galo haddaba Soomaaliya oo aan ka jirin qalan iyo sharci ayaa mudda inuu qof walba iska soo qoro ama sheego wax uu iska rabo taasi oo ay u keentay maalin walba in ay ku dhintaan Soomaali fara badan sida awgeed waxaan rabaa in aan u sheego ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed in ay bartaan shuruucda iyo sharciga lagu dhigo jaamacadaha xataa loo siiyo seminaaro wariyaashan iyo saxaafadahan midda kale Soomaalidana waxaan rabaa in aan u sheego oo intii hore gabayga wax isku gudbin jirtay inay haatan saxaafada ay shaqo ka dhigteen Soomaaliya wax saxaafada oo dan idin haysan ma jiraan saxaafada waxaan u bixiyay dagaalka afka Soomaaliyeed ee ugu daran sida awgeed iska ilooba website-yada iyo BBC-da dhamaanba waxay yihiin kuwa colaada buubuuniyo ugu daran danta guud iyo arrimaha horumarka Soomaaliya u leh ama in yar oo iftin oo nabada haday arkaan way binacib yihiin kama hadlaan waxay jecel yihiin inta xun sida awgeed kuwan iyaga website-yada ee Soomaaliya ka jira waxayba ka bilaabeen xeerka lamagalayga waayo wax xajinaya malaha maalin walbana waxa la dilaa kuwa iyaga kamid ahi sida awgeed waa inay bartaan xeerka oo aan wax dhib u keenin waayo wararka waxay leedahay qaabab loo akhriyo oo suxufinimo oo tafatiran lagumana taraaraxo kuwaas oo inta badan dadka shacabka loogu talagelin inay nuxurka ogaadaan sida awgeed waxa muudaba Soomaalidu iyadoo inay ka bilowday meelaha khatarta oo dhib fara badan u keenay waxaba ka sii daranba website-yada qaarkood waxay u isticmaalaan gadanahooda khaaska ee keeni kara inay xataa bulshada wali ku jirto arrimaha qabiilka haddaba bal website-kan ila arag waaga cusub waa kan ugu daran kuwan sharci xataa hadduu jiri lahaa Soomaaliya kuwa ugu horeeya ee albaabada loogu xiro ayay noqon lahaayeenba waayo shuruuc qabataba ma jiraan waxaan ay sheegayaan inta badan Soomaaliya aaminina annagu waxaan nahay wadani TV waxaan ka hadalnaa dadka iyo danta iyo wadaniyada qadiyada shanta Soomaaliyeed maanta laga bilaabo BBC iyo website oo dhan iska iloow xagee runta ee Soomaaliya maanta miro u noqon kara amaba ay daawan karto maadaama ay war u baahan tahay waxa soo baxay TV aan dhihi karayo wuu buuxiyay shuruucihii waa halka TV ee buuxiyay shuruucaha caalamka ee suxufinimada waa wadaniyiin aan qoyahanin isbiirsatay waayo barnaamijyo ay diyaariyeen ayaan aad uga helay oo aan ku taageeray ila arag waa TV-gan Universal TV waa TV-ga kaliya ee matali kara Soomaali weyn waa TV qadiyad Soomaalinimo ee wadaninimo xambaarsan waa TV-ga bulshada maanta tusay waxyaalo aad ay ugu baahan yihiin oo dadar iyo wacdara galiya haddaba maalin dhaweyto ayaa wariye kamid ahi wuxuu helay oo waraysi uu ka qaaday sargaalka ugu sareeya Ingiriiska kaas ee booliiska su'aashu uu weydiiyay ayaa aniga qudhigayga jirircay u kacday wuxuu yiri dhalinyarada Soomaaliyeed ee 20ka ay naga dhimatay London walina ay ku jirta arrimahooda khatar oo laga cabsi qaro maxaa amni ahaan oo aad u damaanad qaadi kartaan taasi waxay ku tusaysaa wadanimada iyo qadiyada oo ay dareensan yihiin wariyaha oo jawaabtii uu ka bixiyo aad u ficneedo haatan aan u haynin waqti inaan idin tafatiro ayaa haddana waxa la yaab badan hadii jansiga ay heli lahayd BBC ama website-yada kale waxay dhihi laayeen dadka mayalka adaga Soomaalida ku soo orkaysay dhalinyarada maxaad ka qaban lahaydeen ama dhalinyarada maalin walba ku biiraya al-shabaab iyo wax daran oo aan loo joogin sida awgeed
waxay ku tushaysaa dhalinyarada inay xubaarsan tahay. su-aasha markuu ku celinayay soomaali ahaan ayuu u hadlaya, xataa ma dhihi karo su-aashaasi suxufi ahaan ayuu wax u weydiiyey, si soomaalinimo oo qiirinimo la u weydiiyey. waxa amni oo damaanada oo uu sheegi karo dhalinyarada soomaaliyeed ee maalin walbaba lana lagu laayo ama lagu baabi'iyo. sidaa aageeto waxaa kaloo ay soo daayaan barnaamijyo shacabka waxtar u leh. waxaa markaa taageeray annagana haddaan ahay bahda wadani t v waan taageeray. waxaan u samaynay hees abaalmarin aan u siinay oo aan jecel lahay inay u saari doonaan laxan iyo muusig iyo fanaan u qaado. heestan oon aan ahayn fanaan ayaa waxaan damacnay inaan u gudbino miraheedii. sidaa aageeto si astaanka ay u noqoto tv-gan oo annagana aan taageeray. haddaba heystii waa sidan. waataa heystii aan ugu talagalay haddaan nahay bahda wadani tv.com ee aan u samaynay rabna inay laxanka iyo muusikada iyo fanaankaba saartaan. heestii miraheedii waa sidan. allowda dayartii samaysay universal t v, allowda ha joogaan adduunke dayartii samaysay universal t v, allowda ha joogaan adduunke dayartii samaysay universal t v. wadanimada aqoonta doorkii dalka daadihin lahaa, wadanimada aqoonta doorkii dalka daadihin lahaa. adigana hadiidin adeeco walaalkaa ku faan dadaalkiiba gaareen adduunka aqoonsaday. adigana hadiidin adeeco walaalkaa ku faan dadaalkiiba gaareen adduunka aqoonsaday. allowda ha joogaan adduunke dayartii samaysay universal t v, allowda ha joogaan adduunke dayartii samaysay universal t v. waa warar daacado danta guud dalka u simeeyay, waa warar daacado danta guud dadka u siman yahay. waa daryeelka bulshado doonista nabado ku dareensiin waxay dowladnimadu tahay. waa daryeelka bulshado doonista nabado ku dareensiin waxay dowladnimadu tahay. allowda ha joogaan adduunke dayartii samaysay universal t v, allowda ha joogaan adduunke dayartii samaysay universal t v. annagana waan taageersanahay maasha allahu tacaala. halkaa kaga wada samaha iyo soomaalinimo. garabna allaha idinka siiyo, allahana idinka siiyo ajar iyo xasanaad sida wadanimo ee qadiyadeed ee soomaalinimo ee u shaqaynaysaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.